5 sano isla markaana uu ku soo dhaqmay gobolada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose. maanta 15 maalmood u xiran yahay qolyaha nabad sugidda waxa dambi lagu haystay noo sheegeen ma jirto muwaadinkan 24 saac in dadkiisa lagu cadeeyo dowladda sharciga ama 48 saacadood marka 15 maalmood waaye waxaan dareensanahay kamid ahaan waa shaqooyin aad loo dhiib dadkana waan ka warhaynaa kolay shaqooyinkaas loo dhigay oo aad lagu xirmaayna dambi leeyahay malahan aad waa nin labadoona oo 35 sano ka badan labadoon ahaa ummadda Soomaaliyeed u dhashay gobolka Shabeellaha Hoose ilaa Jubbada Hoose deganaa weligiis wadanka waxaa ka jira in dadka la iska gato in dadka la sabito waxay ahayn lagu tilmaamo marka haddii qof iskay hor yimaado wixii maanta uu ku garan karo waa yaqaana wadanka marka shaqada iyo daban loo dhigo waaye maalinteeda laga xisaabtami doonaan. Haweeneydani oo ka mid ah ehelada nabadoonka ayaa baaqood dheer ah u dirsay dowladda Soomaaliya waxayna dalbatay haddii uu dambi leeyahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo horkeeno cadaaladda waxayna intaa raacisay in nabadoonku uu yahay qof qaba cudurka sokorta uu yahay qof da ah isla markaana haddii dowladda gacanteeda wax uu ku noqdo iyaga ay qaadanayaan mas'uuliyaddaasi. laakiin dowladda haddii cadaalad jirto oo sharci jiro oo maxkamadaha shaqaynayaan waa inay muwaadiniinta aynu ku xidhmantay hadday dadka banaankaa soo dhigan haddoosan lahayna ha sii daayaan odinta 20 jir waaye cudurro badan oo leeyahay haddoo gacanta dowladda wax ku noqdo annaga famil ahaan dowladda la xisaabtamaya iyo cidda shaqoosadaas xisaabteeda marka la taala. nabadoonkan u xiran dowladda Soomaaliya ayaana jirin mas-uul ka tirsan dowladda oo ka hadlay sababaha keenay muddo intaa la eg inuu ku xirnaado xabsi ku yaala Muqdisho isla markaana ay maamusho dowladda Soomaaliya.